ولذلك الذنب وكذا لنا وهي المسلمون على شروطهم لكن مشكلته waxay tahay asaaska wixii lagu bineeyay inuu yahay wax qaldan waad arkayseen 3 isbuuc ka hor baan filayaa in dhalinyaro aad u da'yar la yiri waxa weeyaan dood baa la idin qabanaya oo ay ka hadlayeen sodohda oo gabadhu lahayd sodohda waxa weeyaan ninka ay qabo hooyadii waa in aniga idan iyo ogolaashay qaadato arintaasi waa tarbiyada awlaadda luntay oo nabigu sheegay xadiiskan alayhi salaatu wasalaam waa inuu sheegi doonaa sidoo kale laba habeen ka hor iyadana waxa laga doodayay qadiyada ku saabsan qabyaaladda ma qabiil waa qabyaaladda laana labay kala yihiin inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala adii cid ka dhigay oo isra aad leedahay waa qadar kawniya ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaa dooray sababtuna waa li taarafu laakiin qabyaaladda way ta laga hadlayaa waxa aad loo dhaleecinay culimada oo gacanta aad loo galiyay oo la yiri iyaga ayaa gabay waajibkii waxa way arinta kaga aadanaa waana sax sidoo kale waxa la marwan ka ah waxa weeyaan xukuumadda iyo dawladda waayo ummadda hadii lagu dhaqo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa takale diinta oo ah kitaabka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo dhaqanka ayama horeeya wadayna Soomaalinahay dhaqanka ayaa inaga weyn kitaabka iyo sunnada walidaalika waxa laga yaabaa in Ilaahay adoo noo naxariisan kufru bil laazim dhamaanteen ku wada baxayna iyadoo qof waxa laga yaabaa oo qof waxa weeyaan uu tacninayo oo nasabkiisa wax ka sheegayo iyo habsooc iyo wax lamida aanu dareensanay hadan wuxuu ku dhacay waxaad ku dhacaysa miyaad garanaysaa qofkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigay reer hebel waa qadar kawni weey la maxfuus ay ku taala qofka tacniya waa qof tacniye qadarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo ficilka Ilaahay qofka qadarka Ilaahay tacniyana waa kaafir billahi subhanahu wa ta'ala وقف دينته إسلام كاب حيوي إحنا نقول كفر باللازم وارن أدو خطر ولا ليه لكن واجبات كنوع عاسة يعد كهذا لله إذا حكمين له وعد إله سبحانه وتعالى ومضى مسلمين ته حل كذا حويا نودي بي إلهنا وويدينيه الإمام راع ومسؤول عن رعيته.